ويا بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كيني تحناها مادة كيمستري فون 4 كا كلاس كا فون 4 شابتر كا أفراد وحن قادنا مانتا lesson كلابات وحن روسو قادنا lesson 1 وكهلي وحلو يقانو reaction ندينا كلا قيبيني سيدو كله إن نسوي إنه وحلا يراد profiles وشهده اللي جو قرني reaction كدو exodemic هاي يهدو endodemic هاي أيان كسو هذا اللي حيصير دنيا هوري ما أنت وحنا كهلي نحيصير دنيا لبعض lesson 2 lesson 2 قاسي وحنا كهلي دونا وحلا يرادو standard conditions و 4.2 standard conditions قاسي أو شروطها لا إلالين أيو marka la doonayo in la cabiro waxa la yiraahdo enthalpy change waxaan ku sheegnay waa tamar isbedelaysa taas la cabiraa laakiin lama cabira baa nirishalay enthalpy oo tamarta guud ee shayada falgalaya leeyihiin hadaba shuruudahaas la iska rabo at the end of the lesson ashirkaas marka uu dhamaado learners should be able to waa inuu bartuha awoodi karo identify standard enthalpy change of conditions standard conditionska inuu sheegi karo explain the standard enthalpy change of a reaction tamarta isbedelaysa markuu falgal dhacayo oo loo qaadanayo delta HR and give examples iyo inuu tusaalayaal ka bixin karo sidoo kale describe standard enthalpy change of combustion inuu describe gareyn karo tamarta isbedelaysa markuu shay gubanayo inagoo gadaal kaga hadli doono gubashada iyo xeerasha aanu fiirin doono sidoo kale and draw enthalpy profile of combustion reaction inuu sawiri karo waxa loo yaqaano wajahadi profile waa wajahadi combustion reaction ka inagoo tamartiina haysana inaan sawiri karno profile-kii waa sawirada shalay aan soo sawirinay standard enthalpy change of formation sidoo kale inaan ka hadalno waxa loo yaqaano tamarta uu shay ku sameysmi karo intaasi waa waxyaabaha laga rabo waxa loo yaqaano bartuhu inuu ka jawaabo markaan lesson-ka aan dhamaystirno waayahay standard conditions markaan leenahay waxa la inaga rabaa shayo ama shuruudo loo dejinayo si loo cabiro tamarta la yiraahdo enthalpy change haddii shuruudahaasi la waayo oo enthalpy change in la cabiro la doonayo halkii falgal baa wuxuu yeelanayaa qiimayaal kala duwan sidaa darteed waa in loo sameeyo standard conditions delta H refers to the enthalpy change waxaan soo qaadanaynaa H2 waa energy daltona waa change standard condition waxaan soo qaadanaa calaamadaasi theta ama sigma standard enthalpy change of a reaction takes place wuxuu ka dhacaa under standard conditions xaaladahan pressure constant 100 kilopascal temperature constant 298 kelvin ama 25 centigrade sidoo kale solutionada marka laga hadlayo acidada iyo alkaliga concentrationka solutionka waxa laga rabaa 1 mol per decimeter cubic waa halbeegi concentrationka saddexdaasi qodob waxaan oranaynaa standard conditions enthalpy change kasta oo la rabo in la cabiraana waa inuu ku cabiran yahay under these standard conditions xaaladahaasi waa inuu waafaqsan yahay symbol-kaan u qaadanayno waxa loo yaqaan enthalpy change standard enthalpy change-ga waxa loo yaqaano under standard conditions delta H theta calaamada yar baan u qaadanaynaa waayahay standard enthalpy change definitions standard enthalpy change-gu wuxuu yeelanayaa waxa loo yaqaano definition kala duwan markaan chemistry-ga ka hadlayno standard enthalpy change of combustion baan maqlaynaa standard enthalpy change of a reaction baan arki doonaa standard enthalpy change of a formation baan arki doonaa standard enthalpy change of neutralization tirooyin badan buu qaadanayaa sidaa darteed waxaan leenahay there are a lot of enthalpy changes that we use in chemistry tamaro badan baa jira oo isbedela oo isticmaalo chemistry-ga kuwaasoo mid walba uu ka hadlo specific reaction and process haddaba listed below hoos waxaa lagu taxayaa some common enthalpy changes kuwo caan waayahay waxaan u horreysiinaynaa standard enthalpy change of a reaction standard enthalpy change of a reaction waayahay symbol-ka aan u joogtaynayno ama aan u qoraynaa wuxuu noqonayaa delta H R sigma ama theta
symbol kaasan u joogtaynayna delta waa change h2 energy r taasina waxay noo sheegaysaa reaction waxaan u baahannahay marka inaan isla fahanno definitionka standard enthalpy change of a reaction inaan define garayn karno standard enthalpy change of a reaction markaan doonayno inaan define garayno waxaan ku define garaynayaa is the enthalpy change waa tamarta isbedelaysa when amount of reactants marka in falgalayaal ah reacts together ay isla falgalaan walibana under standard conditions iyagoo raacaya waxa loo yaqaano conditionadii saddexda ahaa ee soo sheegnay constant temperature constant pressure iyo constant concentration to give say no siyan products mahsul in their standard states wajiyadiisii wata in their standard states wajiyadiisii wata waxa leena marka standard enthalpy change of a reaction markaan sheegayno waa falgal waa energy-da isbedelaysa marka xadiyo ama in falgalayaal ah ay isla falgalaan kuwaasoo ina siinaya product walibana equation ka markaan qorayno waxaan raacinaynaa statuskiisi xaaladihiisi baan raacinaynaa halkaas marka la joogo wax shardi ah oo ku xiran waxa la yiraahdo standard enthalpy change of a reaction ma jiro waayo kuwa dambe shuruudaan keeni doonaa kaliya waxaan iska ilaalinaynaa equation ka aan qorayno inuu miisaaman yahay sidoo kale equation ka aan qorayno inuu wato wajiyadiisa waayahay bal tusaalaha ay fiiri tusaalaha standard enthalpy change of a reaction aan soo qaadanay laba nooc oo loo qori karo biyaha marka la qorayo equation ka water-ka laba nooc oo loo qori karo hydrogen gas oo lagu daray oxygen gas stateska waan qoraynaa wajiyada waan qoraynaa produces waxa ka soo baxay water oo state-ka iyo xaaladdu ay tahay liquid inta markaan hayno waan miisaameynaa si aan u miisaano halkan waxaan dhigaynaa 2 halkaana waxaan dhigaynaa 2 equation keena waxa la ina siiyay tamarta isbedelaysa markuu falgalkaasi dhacayo enthalpy change of a reaction wuxuu dhigmaa -572 kilojoule per mol bal fiiri marka standard enthalpy change of a reaction markaan leenahay waa inaan haysano falgal ama amount of reactants falgalayaashaasoo sameynaya product tamartaasan waxaan u bixinaynaa standard enthalpy change of a reaction waayahay form kala loo qori karaa waxa la yiraahdo equation ka water-ka form ka labaad ee qori karnaa wuxuu noqonayaa hydrogen gas plus oxygen gas arrow water intaasaan haynaa waayahay marka la miisaamayay waxa la yiraahdaa hydrogen halkan waxay ka tahay 2 halkan waxay ka tahay 2 waa balance oxygen halkan waxay ka tahay 2 halkan waxay ka tahay 1 sidaa darteed halkana laga dhigay 1 gadaal baan ku arki doonaa markaan ka hadlayno water-ka waayahay fiiri equation kaas hadda waa miisaaman yahay hydrogen waa 2 oxygen waa 1 oo sidee hal ku noqonaysaa half lagu dhuftay 2 waa 1 halka waxa la ina siiyay tamar enthalpy change of a reaction falgalkaas markuu dhacayo tamartiisu waxa la ina yiri waa 286 kilojoule per mol u fiirso meesha marka labada equation iyagoo laba equation oo xagga ku kala duwan coefficientnada iyo moleska iyagoo ah tamartana waa inay ku kala duwanaadaan misna labada tamarood ee soo baxay labada equation ba waxaan u bixinaynaa standard enthalpy change of a reaction waxa laga wadaa marka standard enthalpy change of a reaction markaan leenahay waa inay amounts reactants isla falgalaan iyagoo wajiyadoodii wata ayna ina siiyaan product state-kii wata tamartaasaan u bixinaynaa standard enthalpy change of a reaction labada noocna waa loo qori karaa hadda kan fiiriso de waa equation keeni sare oo laba loo qaybshay halkaasi laba ahayd 2 qaybi waa 1 halkani 1 bay ahayd 2 qaybi waa half halkaasi laba ahayd 2 qaybi waa 1 halkani 572 ahayd 2 qaybi waa 286 labada equation ba waa isku mid markaan standard enthalpy change of a reaction aan ka hadlayno wax isbedelayaana oo wax shuruud ah oo lagu xirayaana ma jiro waa inaan haysano equation miisaaman tamartiisi iyo wajiyadiisi kuwa shardiyada lagu xirayaa waa kuwan waxa shardiga lagu xirayaa waxa kamida ka la yiraahdo standard enthalpy change of formation kan soo horeysiinayna waa tamarta ay ku
ku samaysamayaan isku dhis formation standard enthalpy change of formation waxaan u soo qaadanaynaa delta h theta f formation waayahay bal han isla garanno marka intaana shaqadeeda gaarin sida looga shaqaynayo han isla garanno waxay sheegayso standard enthalpy change of combustion of formation u fiirsa marka standard enthalpy change of formation markaan define garayno waxaan ku define garaynaynaa inta highlight kan saarnay fiiri waxaan leenahay is the enthalpy change waa tamarta isbedelaysa tamartaasoo when 1 mole marka hal dersin of a compound oo isku dhis ah formed from oo ka samaysmo its elements uriyaashiisa war bal meeshaas ka ilaali hal dersin oo isku dhisa waa inuu product yahay meeshaas waxay nooga muuqata marka waxay nooga muuqata in product soo baxaya horgalihiisu uu noqonayo 1 mole ileen equation ka markaan haysano coefficientska ayaa moleska sheega sidaa darteed waxaan leenahay standard enthalpy change of formation on astaanta u qaadanayno waxay noo sheegaysaa waa tamarta isbedelaysa marka hal dersin 1 mole of a compound oo isku dhisi oo ka samaysmo uriyaashiisa under standard conditions iyadoo xaaladihii loo fiirinayo walibana compound-ka iyo elementskaasina ay wataan wajiyadoodii waayahay bal fiiri haddaba tusaalaheena write a balanced equation for the formation of water fiiri waxa lagu yiri ama waxa lagu siiyey borodhagii baa lagu siiyey water water waxa la inaga rabaa inaan qorno balanced equation war waan iska ilaalinaynaa balanced equation ku haday meeshu formation la socoto skills gaar ah iyo xirfado gaar ah ayaan isticmaalaynaa haday meesha combustion la socotana sidoo kale xirfado gaar ah ayaan isticmaalaynaa laakiin hadii la yiraahdo balance the following equation waa sidaan dhan walba waxban dhigi jirnay sidaa darteed maanta shardi baa jira marka la leeyahay write a balanced equation for the formation of water waxaad qortaa meesha waxa ku jira formation marka ay biyuhu samaysmayaan equation kiisoo balance gareysan qor waaya dhageysan marka waxaan lagu siiyay waa productgii iska ilaali waxaan lagu siiyay waa productgii inagu waxaan oranaynaa maadaama hal dalaysiiyay productgii oo water ah xagee baan ka keenayaa reactantiska halkanaad ka keenaysaa reactantiska elementiskan waayahay oo sideen uga keenaynaa waxaan ku define garaynay enthalpy change of formation waa tamarta lumaysa marka isku dhis uu ka samaysmo uriyaashiisa sidaa darteed isku dhiskani wuxuu ka samaysmay uriyaasha ah hydrogen iyo oxygen waxaan qoraynaa marka kuwaasaan qoraynaa oo kaliya hydrogen oo diatomic ah gas plus oxygen oo diatomic ah gas waayahay inta markaan meesha ku hayno equation ka markaan miisaamayno waan iska ilaalinaynaa haday formation tahay inaan halka wax dhigo waan iska ilaalinayaa halkaasi waxba ma dhigayo waayo waxa laga rabaa borodhagaygu inuu ahaado 1 mole horgalihiisu inuu 1 ahaada laga rabaa ma ila socotaa meesha sidaa darteed dhulka kale miisaamaya ama jajab isticmaal ama point isticmaal way banaan tahay waxaan leeyahay marka fiiri hydrogen-tu waa 2 halkana waa 2 balanced oxygen-tu waa 2 halkana waa 1 halkaasi waa la diiday markay formation ka tahay inaan wax dhigno 1 mole baan ku daynaynaa sidaa darteed waxaan ka fikiraynaa halkan sidaan hal uga dhigi lahayn haddii kale oo skill isticmaasho waxaad oranaysaa fiiri oxygen imisay ka tahay geeska hal fiiri hal loo qaybshay imisay ka tahay geeskana 2 half ilayn haddaan doonayno 2 oxygen inaan hal ka dhigno waa inaan half ku dhufano sidaa darteed halkaasaan half ku dhufanaynaa equation keenaas waa balance oo muxuu balance ku yahay the half lagu dhuftay 2 waxa meesha ka soo baxaya 1 halka oxygen waxay ka tahay 1 waayahay tamarta layna siiyana waa waxa loo yaqaano 280 iyo 6 delta hr minus 280 iyo 6 kilojoule per mole waayahay tusaalaheena labaad waxa la inaga rabaa kaasi waa a tusaalaheena labaad waxa la inaga rabaa inaan qorno balanced equation for the formation of aluminium oxide fiiri markay formation type product lagu siinaya markay formation type product lagu siinaya adigu waa inaad product-gaaga kala jabiso oo into elements aad u kala jabiso
sidaa darteed maadaama waxani barodhagii yahay halkan iigu qor Al2O3 solid waxaan u kala jabinaynaa waa barodhagii waxaasi aluminium iyo oxygen aluminium waxa loo qoraa Al solid waa bir oxygen waxaan u qoraynaa O2 diatomic gas oo shayada diatomigi waa kuwa marka la akhrinayo in ku dhamaada oxygen hydrogen bromine iodine akhriska in waa diatomic kiligi ma istaago waayahay inta markaan hayo maadaama formation ay tahay halka lama rabo inaan wax dhigo waa inaan ku kiib garayo 1 dhulka kala jajabsanaya marka aluminium waxay ka tahay meesha 2 halkana waxaan u dhigayaa 2 oxygen waxay ka tahay meesha 3 halkana waxay ka tahay 2 waxa laga rabaa marka inaan halkan 3 ka dhigo oo bal sirtaan isticmaalayna fiiri oxygen imise geeska ka tahay 3 loo qaybshay geeskana imise ka tahay 2 intaasi markaan habayno waxa noo soo baxaya 1 1 2 mixed number waa 1.5 ayaan halka dhigaynaa 1.5 baan halka dhigaynaa ama 1.5 marka maxaa laga rabaa inaan iska ilaalino barodhageena inaan 1 wax ka badan ku qorno barodhageena 1 baan ku kiib garaynaynaa dhulka kale aan jajabinaynaa oo aan yaryaraynaynaa waaya kaasina waa ka equation kiisoo dhameystiran topigeena xiga waxaan leenahay standard enthalpy change of combustion muxuu sheegayaa combustion waa gubashadii standard enthalpy change of combustion waxaan leenahay combustion waxaan u qaadanaynaa delta H theta C combustion standard enthalpy change of combustion wuxuu sheegayo waan define garaynaa marka hore highlight baan saarnay enthalpy change of combustion markaan leenahay is the energy change waa tamarta isbedelaysa when 1 mole of an element marka hal dersin oo curiyayaal ah or compounds ama isku dhisya ah react together ay isla falgalaan completely si dhameystiran ay ula falgalaan with oxygen under standard conditions iyagoo xaaladahooda leegayo marka meesha fiiri waa in hal dersin oo curiyayaal ah ama hal dersin oo isku dhis ah waa inuu oxygen si dhameystiran ugu gubto tamartaas la oranayaa standard enthalpy change of combustion waayahay haddaan tusaalaha fiirino waxa la nasiirayaa wixii gubanayay what are the reaction equations for the formation for the combustion what are the reaction equations for the combustion of sulfur waxa laga rabaa inaad qorto sulfur markay gubanayso markii hore formation ma qoraynay combustion inaan qornaa la inaga rabaa sulfur markay gubanayso equationkeeda sidee loo qorayaa waayahay waxaan leenahay sulfur waa S waxa lagu siiyay maanta waa sheegii gubanayay formation kale waxa lagu siin jiray barodhag iska ilaali sulfur waa S waa solid lagu daray combustion oxygen waa gas produces sulfur dioxide gas waayahay halkaas waxaan ku haystaa delta H C oo enthalpy change of combustion ah waxaan ku haystaa minus 296.8 kilojoule per mole waayahay bal meesha fiiri equation-ka markaan soo qoray equation-kayga aan qoray waxa laga rabaa markaan leeyahay enthalpy change of combustion waar shayga la falgalaya oxygen-ta waa in horgalihiisu ahaado 1 marka horgalaha kaasi 1 marka maanta equation-keenu naturally uu iska balance gareysan yahay laakiin maxaan u baahannahay inaan ogaano shayga oxygen-ta la falgalaya horgalihiisu inuu yahay 1 bal tusaalaha labaad fiiri waxa la inaga rabaa ethane inaan qorno equation-ka ethane inaan qorno la inaga rabaa waayahay ethane markaan qorayno symbolka ethane waa C2H6 waa last example-kii waayahay gas combustion plus oxygen gas waayahay maxsuulku wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo carbon dioxide gas plus water fiber liquid halkaas aan ku qoraynaa tamartiisina waxa la ina siiyay 1560 fiiri marka equation kaasi markaan leenahay waxa la yiraahdo waa combustion waxaan rabnaa inaan qorno equation-kii oo balance gareysan bal fiiri marka la balance gareynayo combustion-ka lama taabanayo shayga oxygen-ta la falgalaya horgalihiisa 1 baa lagu deynayaa 1 mole waayahay laba carbon baan haystaa halkaas waxaan dhigayaa 2 laba carbon
لح هيدروجين بان هيستا سي هيدروجين تا لح نقطه halka waxaan dhigayaa 3 oxygen tibay hartay oxygen ta halkan labay ka tahay laakiin geeskan waxay ka tahay laba lagu dhuftay 2 4 iyo 3 halkaasa lagu daray 3 7 ay ka tahay halkan waxa laga rabaa inaan ka dhigo 7 sida darteed 3.5 halkaas u baahan tahay haddaad si kale u fikirto waxaad oranaysaa imise geeska ka tahay 7 oo loo qaybshay geeska waxay ka tahay 2 inta haddaan gaagaabino waa 3.5 waa 3.5 waayahay halkaas waxaan oran karnaa markaa 3.5 marka waxa laynaga rabaa combustionka markaan ka hadlayno shayga oxygen-ta la falgalaya inaan sidiisa ku keep garayno exercise-kaasina waa 4.2 exercise-kiisii xabada koowaad oo formation ah equation-ka markaad qorto sawirkii baad muujinaysaan xiisadeena hore muujinay xabada labaadna waxaad qoraysaa combustion. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.